adiga hadaad beer wax dhalay aad tihid aad nixaysid oo ilaahay aad ka cabsanaysid lagu soomay lagu salaaday anugaaga khalad ha ka galin ee ilaahay subhanahu wa ta'ala afis weydiiso gabadhaane jinsigeeda aad caasay ama aad aflagaadeysay raali gelin weydiiso hooyo laakiin haddii videogan uu ku soo gaaro ama videogan waa ogaheed please duuba guys ku share gareeya meel walbo 2022 waxaanu aragnay dhacdooyin aad iyo aad noogu cusub oo qof walba Soomaali ah ula noqotay cashir cusub hadaba daawade muuqaalkan hadda aad soo aragteen waa wiil hooyadiisa marna aad iyo aad u jecel waxa ka dareemaysaa wiilkaani hadaladiisa inuu hooyadiisa aad iyo aad u jecel yahay kama kan sidoo u jecel yahay uu xaaskiisa iyo cunugtiisa uu aad iyo aad u jecel yahay haddana arinta waxay noqotay laba mid dooro ayay noqotay ama hooyadaada warkeeda oo ah naagtan jirir inaad furtid arinta kalena oo ah gabadhaad jeceshahay jirir ba ahaato ama nooc kale ahaato iyo gabadha ay ku heeso mid dooro ama hooyadaada ama ilmahaaga iyo xaaskaaga mid dooro ayay cunugaani ama wiilkan Soomaaliyeed ku noqotay okay marka markaasi oo asiga ahaan u fikiray wuxuu go'aansaday inuu nafta isdhaafiyo waayo malakal dooran karo ninkan wuxuu u baahan yahay hooyadiisa u baahan yahay oo wuxuu ka cararayaa in ay markaasi habaarto ama ay kala go'aan waayo 9 bil sugiis ayay soo waday caadifatanna wuxuu ninkan wiilkan Soomaaliyeed haddana ma rabo in uu ka tago xaaskiisa ay cunugtiisa yar oo cunugtaas yar aablaan oo dhigo taasna uu ku soo horjeedaa tanna uu ku soo horjeedaa marka waxay noqotay in uu wiilkaani bataataba nafsada uu isdhaafiyo hadaba su'aashina waxay tahay daawadayaal yaa khaldan oo yaa saxan wiilkaani muku saxan yahay in uu qaato talada hooyadiisa oo gabadhaani Soomaaliyeed islaamka ah oo cunsurnimo loo kacay in uu furo cunugtaasna ablaan uu dhigo uu furo hooyadiisa amarkeeda uu qaato ma saxan mise waxa saxan bataatanba in uu markaas nafsada isdhaafiyo ayaa saxan ama isku hanjaba in uu isdili doono miyaa saxan mise waxa saxan in hooyadiisa amarkeeda uu jibiyo oo xaaskiisa caruurtiisa uu la noolaado ayaa saxan intaasba idinka baahanahay fadlan fikirkiina comment-na igu reeba waayahay waxaan kaloo walaalka aan ka codsan lahaa inta muuqaalka aan guud galin waxaan si Soomaali islaamnimo iyo walaaltinimo aan ka codsanayaa in aad muuqaalka like noo saartid YouTube-kana aad noogu soo booqatid oo subscribe noo saartid waayo waxaan ahay walaalkaaga Soomaaliyeed oo YouTube ku ciilan oo u baahan sida walaalaha kale ee aad garabka u siiseen inaad garab ii siisaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh waa idin salaamay walaalay Soomaaliyeed meel dunida aad ka joogtaan salaamullaahi calaykum salaan kadib waxaan rabaa inaan muuqaal baraha bulshada maalmahan wareegay inaan xog yar idin siiyo horta wiilkan aad u jeedaan had soo daawateen iyo gabadhaba waxaan arki jiray sanad ka hor ayaan arki jiray oo markaasi ayaga isticmaalayeen baraha TikTok aniga la yaabay il noqotay laakiin nasiibka iyo calafka ayaa kulmiyay waxaan rabaa muuqaal yar oo markaasi gabadha iyo wiilka ku saabsan inaan idin soo bandhigo wiilkaani horta aad iyo aad ugu xumaaday marka muuqaalada ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa oo ku saabsaneed qabiila lagu caana adigoo laan dheer ah ma xabashtaan jirirta guursanaysa marka muuqaal uu sameeyay ayaan idin soo bandhigi doonaa ila daawada
muuqaalkan wuxuu fariin ugu waday dadka xaaskiisa cunsuriyeynaya oo ilaahay ka baqin oo aaminsan qabiil ayuu muuqaalkan jawaab ugu dhigay. Haddaba daawad waxaan ku sheegayaa adiga laandheernimada isku sheegaysa adigii hawiidnimada ama daaradnimada isku sheegaysa Yurub waxaad ka tahay ragsim macnaha waxaa ka tahay adab lagu cunsuriyaabo adig macnaha dadkaaga walaalaha Soomaaliyeed ma cunsuriyeyso adiga walaalahaaga Soomaaliyeed ma cunsuriyeyso haddii Soomaali gudaha Soomaaliya aad ka baxdid meel kale aad tagtid adiga lagu cunsuriyana Arab ahaato Asian ahaadan Yurub ahaadan Latin ahaadan cunsuriya ka tahay agtooda waa madowdahay balaaga tahay laandheernimadaada Soomaaliya ku joogay haddii Soomaali ag tagtid laandheer ma tihid oo lagu cunsuriyana waayahay hadana waxaa jirto muuqaal kale aan soo gudbin doonaa labadooda oo ka turjumaya sida ay isku faraxsan yihiin daawasho wacan Monday we are going to shopping. Somal mahal na shopping. What tukanoy na? Tas tukanoy na ako lang you praying ako lang. Shopping, right? Going to send the commission. So the commission so guys. daawadayaal waa soo aragteen waxaa soo aragteen ayagoo ka hadlaya cunsurnimada in aysan fiicneenin qabiilkan uusan fiicneenin Soomaalinimada ay fiican tahay iyo Islaamnimada ayuu markaasi muuqaal soo bandhigeen haddana waxay soo bandhigeen ayagoo garab iska haysta oo shopping sameysanaaya ay ku faraxsan yihiin noloshooda haddaba farxadaani sida hadda aad aragteen farxadaani waxay noqotay the land of dead ayay noqotay maxay ku noqotay asiga ma kama imaanin waxay ka imaaday hooyadiisii 9 bilood isugiisa waday markii uu adkeysan weysay gabadhaani shakli ahaanteeda meesha ay ka soo jeedo iyo cunugta ay u dhashay wiilkaani cunugta ay u dhashay oo markaasi ku qanacsaneen qaabkii cunugtaasi u ekaatay kulay ilaahay naga cafiyo arintaasi maamad waxaan leeyahay waad ku qaldan tahay ilaahay awristiisa wax laga ma sheegi karo ilaahay awristiisa wax ma laga sheegi karo qofka inaad cunsuriyeysan xaq uma lihid qofka jinsi ahaan inaad ku cunsuriyeysan xaq uma lihid maama intaas ku qaldan tahay okay marka muuqaal oo wiilka soo duubay ayaan soo bandhigi doonaa farxadan hadda uu haysta kadib maxaa ka dambeeyay hadda muuqaalkan kadib wiilkaani social media ma lagu arkin si uu soo duubay maanta ku saddex social media uu ka maqan yahay arintani waxay cadeynaysaa in uu markaasi ama ay shaki gelinaysaa inuu nafsada isdhaafiyay ay shaki gelinaysaa haddaba waxaan arki doonaa meesha ay ku dhamaan doonto balse dardaarankiisa ugu dambeeyay aan wada dhageysano hooyo laakiin haddii videogan uu ku soo gaaro ama videogan waa ogahay please duuba guys ku share gareey meel walbo waxaan u maleynayaa marka dambe oo videogan ku soo gaari doono anigoo nool inaadan ila kulmin oo aadan codkayga maqlin laga yaabaa dunidaba inaan ku nooleen xilligaas hooyo xaggayga cafisaa ka tahay laakiin please hooyo ilaahay cafis weydiiso gabdhaha Soomaaliyeed idinkana waxaa idinka codsanayaa please subxaan allah waa dhacday yaa haddaba hooyadan Soomaaliyeed wiilkeeda ma asxaan ayay u sameysay mise cunugeeda ayay maanta naftiisa khatar gelisay waa dhacdooyinka ugu darnaa ee 2022 noogu bilaabatay hooyo waxaan la hadlayaa wiilkan hooyadiisa iyo familkiisa la hadlaa hadda wiilkiina
hadduu isdilo yuu ka dhintay wiilkan hadduu nafsada isdhaafiyo yuu ka dhintay gabadhaani aad cunsuriyeyseen nin kale helaysaa idinka wiilkiina oo kale ma helaysin wiilkiina ma helaysin talo hadduu maanta wiilkiina isdilo idinka sumcad ma yeelanaysin qabiil ahaan dadka cunugan qabiilkiisa u sheegay hooyadiisa iyo aabihiisa iyo walaalihiisa u sheegay hadduu maanta wiilkiina idinka baxo ya idinka ma helaysin ajir ma helaysin farxad ma helaysin nolol ya farxad nolol ma helaysin hadduu maanta wiilkiina isdilo ha bedelkiisa gabadhan bedelkeeda بدل كلمة هلسين عنقنا فرحة ديسا مهلسين وحوك أسيو فرح سنية مؤسمي كرتين ويوقفكم وحسنكم فرح سنين يا فرحة لمرة وحسنكم قناع سنين قصب معهن إن أديك أتهدد وحاسي مجران قفكوا بالآدن شدانا وكو حرير بحول بوسمي كران maanta hadduu had adiga kula hadlaa wiilka hooyadiisan la hadlaa iyo walaalihiisa kuli idinka sharaf miyay idin tahay in wiilkiina saan aad u gashaan asigna muuqaal oo soo doo sharaf miyay idin tahay maxay idin tahay marka maxaa ka faa'iideysaan had sharaf ma haysteen waxaad isku moodeen in aad sharaf leedihiin isku moodeen warkiina uu saxan yahay laakiin sharaf ma leedihiin anugiina baari uu idin yahay laakiin wuxuu waayay garab ayuu waayay wiilkani waa baari laakiin garab ayuu waayay idinka waayay wiilkan maanta hadal xun ma uusan ku hadlin wuxuu ku hadlay hadal wanaagsan oo ku hadlay wuuna ku cafiyay adiga hadaad beer wax dhalay aad tihid aad nixaysid oo ilaahay aad ka cabsanaysid lagu soomay lagu salaaday markii lagu dhalayna dhigta lagu aadaamay lagu aqimay ya diin islaamka ku soo tarbiyad macnaha lagu soo tarbiyay anugaaga khalad ha ka galin ilaahay subhanahu wa ta'ala afis weydiiso gabadhaani jinsigeeda aad caasay ama aad aflagaadeysay raalgelin weydiiso hooy reer dhistal argi jiray laakiin hooy reer burburinaysa lama arkin ahe ilaahay ka cabso wiilkaaga afis weydiiso wiilkana xaq uu leeyahay gabadhaasna oo sadaqta u tidna xaq ay leedahay